kulanti wanaagsan saxaabay meel kastoo daga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo waa habeennimo jimcaha sabti soo galayo taariikhduna waxay ku beegan tahay 12 bisha 2026 barnaamijka waa kii saddexaad waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn balse intaynaan barnaamijka guda galin waxaan idin xusuusinayaa maanta waxay ahayd maalinimo jimcaha channelkeena youtube-ka ee qisooyinka nadaara laba waxaan soo gelinay qisadii maanta oo jimco ah oo markaa aanu isleenahay si weyn ayaad uga faa'iidi doontaan oo markaa arrimo muhiim ah ayay qisadani ku saabsan tahay dadka qisooyinka jecel ayaa iyagu halkaa ka heli doona haddaba markaynu usoo noqonno qodobada barnaamijka caawa aanu ku bilaabayno waxaa ka mid ah sidaa la socotaan maantaydii hore waxa uu sheegay ninka la yiraahdo Trump inuu heshiis la gaaray Iran laakiin heshiiskaas uu sheegay wax kaligiis ku kooban iska ahayd Israa'iil oo dad ugu dhaweyd waxay lahayd waa la yaabanaa heshiiska muxuu wataa ka soo sheekeeyay barnaamijkeedii hore si fiican aan ugu falaqayay heshiiskan iyo ninkan soo ugu dhawaaqay iyo wuxuu dhan waa ka hadal marka waxay noo joogtay Iran dhankeeda ayaa tafaasiil rasmiya laga sugayay maxaa marka ka soo baxay ilaa maanta Iran ilaa hadda war saxa oo heshiiskaas uu jiraa waa la gaaray lama hayo warka ugu soo dhow waa warka wasiirka arrimaha dibadda Iran waxyaabo badan oo la isku mari laayahay way jiraan laakiin waa la gaari doonaa iyo heshiisaan la gaaray dagaalkii waa dhameeyay laba meel kala tahay waa la gaaray heshiiskii sheekada Iran waa soo dhameeyay dhahay Trump saak nimankanuna wasiirkooda arrimaha dibadda hadda soo hadlo wuxuu leeyahay heshiis in la gaaraa loo dhow yahay haddii waxa meelaha jira la dhameeyo waaye taas marka waxay noo cadeynaysaa wax saxa oo rasmiya oo heshiisa oo la gaaray inaanu jirin midda labaad warbaahinta Mareykanku waxay wadeen oo ay soo xiganayeen mas'uuliyiin Mareykan ayagoo leh axadda soo socota ayaa magaalada Geneva waxaa loo malaynayaa in halkaa lagu saxiixi doono heshiiska Mareykanka iyo Iran waliba dhanka Mareykanka waxa uu saxiixi doonaa madaxweyne ku-xigeenka halka Iran ay soo dirsan doonto wafdi hogaaminayo Qalibaaf sheekadaas iyaduna Iran maxay ka tiri Mareykan wuxuu soo koobayba hadda la tagaa meeshu leey haddaba markaa la tuso iyana mar kale wakaalada wararka Anadolu waxay leedahay goor sii horeysay maanta oo jimco ah warbaahinta Iran waxa ay beeninayaan wararka sheegaya in heshiiska u dhaxayn doona Iran iyo Mareykanka axadda soo socota lagu saxiixi doono magaalada Geneva ee dalka Switzerland iyadoo heshiiska ujeedadiisu ay tahay sidii loo soo gabagabayn lahaa dagaalka oo wada hadallo rasmi ah loo bilaabi lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalaytii waxa uu sheegay in dalkiisu uu go'aansaday in la dhameeyo dagaalka Iran kadib markii uu sheegay in Tehran ay ogolaatay inaanay hub dambe oo nuclear ah ka sheekayn doonin oo aysan samaysan doonin mawjida marka nimankan Iraniyiinta warbaahintoodu waxay leeyihiin wax wara oo dawladda ku saabsan oo aan hayno hadda in heshiis la saxiixa ma jiray sheekada dhamarka wali way isku qasantahay waxa meel u socdaan meel kale lama yaqaano saan idin sheegay wali wareerkiya socda wareerkan baatayda hor ka hadleeday ayaa wali taagan ilaa caawa wareerkaas socda dhanka kale Netanyahu markuu ninka ku wareeray dadkiisu marka way ku kacayaan wuu og yahay yahuudi way kacaysaa waxa leedahay aw dagaalkan Ingiriis cid wax ku weydiinaysa lama arko waaba la heshiiyay Iran lagu bilaabay ninkii marka waa inuu boorka iska jafaa xogaa nin lala tashaday oo kartile iska dhiga saakay muxuu lahaa shock meeshan ku shoogaan fadhiya oo la yaab ma igu noqotay heshiiska Trump uu sheegay soo saaka ma lahayn hadda caawa soo isu badbaadiyo sheeko kale oo kale yahuudi madaxa u salaaxaya haddaba markaan idintu soo wararkii ugu dambeeyay waxa leeyahay Netanyahu wuxuu sheegay inta aan anigu ra'iisul wasaare ka ahay Israa'iil Iran ma heli doonto hub nuclear ah
arrintaa wuxuu sheegay inay iska waafaqeen isaga iyo Trump ay isku raacsan yihiin. hadalkan marka waa la durayaa fiiri. ninkan wuxuu leeyahay inta aan ra'iisul wasaaraha ahay Iran nuclear ma samaysan doonto. waxbuu durayaa hadalka macniyan waxay qiimeynayaan dadka khubarada waxay leeyihiin ninkan hadduu ra'iisul wasaarenimada ka tagana Iran way samaysan kartaa waa macna. laakiin inta aan anigu ra'iisul wasaare ahay Iran nuclear ma samaysan doonto. ma dhihin ayay leeyihiin fiiri hadalkiisa la qiimeynaya oo la korogrogaya. muxuu u dhihi waayay Israa'iil waxay sheegaysaa inaysan Iran mar dambe hub nuclear samaysan doonin. Iran mar dambe hub nuclear ma samaysan doonto. iyo inta aan anigu joogo Iran hub nuclear ma samaysan doonto. meeqay kala tahay laba macno ah. marka laba ujeedo kale yahay inuu Trump iyo kooxdiisa u iftiiniyo inuusan ku qanacsaneen waxa la wado. wax mustaqbal iyo aayatiinka ubadka Yuhuudda ee ku noolaanaya bariga dhexe heshiis wax u taraya inuusan aynu hadda heshiis maalmo inta Netanyahu joogo yac u dhahay ninka kaliya marka ka celin kara Iran inuu nuclear samaysato inuu Netanyahu yahay. Netanyahu hadduu baxo meeshaas sheekadaas marka socota waali waaye arrinkaas socda. waxyaabaha kale la yaab kale ee caawa warbaahinta Israa'iil ay ka hadlayso waxa kamid ah maalmo ka hor diyaaradaha Iran oo u qalab qaatay duulaan ku qaaday Iran. waa kuwa Israa'iil diyaaradaha Israa'iil oo u qalab qaatay inay Iran weeraraan. waa habeenadii la isgaraaci jiray Iran iyo maaragtay iyo Israa'iil isgaraaci jireen. diyaaradooda inta qalabkoodii qaatay iyagoo weerar ah ayaa dawlad ajnabi ah dhaxda loo gashay yiraahdeen. dawlad ajnabi ah ayaa dhaxda u gashay diyaaradii. waxay ku qasabtay inay dib u soo laabtaan. maanta dhan marka warbaahinta waxay raadinayeen dawladan ajnabiga ayaa waay yaa dhex u gali kara diyaarad Yuhuudda leedahay oo weerar ah meel u socota yaa u gali kara. ma Ciraaq dhex u gali karta, ma Suuriya dhex u gali karta, ma Lubnaan dhex u gali karta. sababtoo Israa'iil markay ka soo kacdo Lubnaan, Suuriya, Ciraaq, Iran saasay u soo gashaa. intaasoo dawladooda soo dulmartaa. waxa waaye Lubnaan iyo maaragtay iyo waxay soo dulmartaa iyo Suuriya, Ciraaq saas u soo dulmartaa. ama dhankan kale ka soo duushaa Jordan iyo saasay u soo dulmartaa halkaas ka soo gashaa. yaa marka hore istaagi kara dawladda ajnabiga yaa waay. waa lagu wareeray marka yaa waay dawladda ajnabiga yaa waay. markii dambe waxa leeyahay waxa la soo ogaaday dawladda ajnabiga ay sheegayaan inay yihiin Mareykanka. sababtoo ah habeenkaas ma ogoleen Trump in dagaalku sii socdo. waa tii uu yiri Netanyahu jooji ha weerarin Iran. marka ciidamada loo diray Mareykanka ka hortagay dib ay u soo celiyeen. haasan loo sheegaya haddaba marka aan tuso warbixinta laga qoray ciidamada cirka oo ajnabi ah ayaa ka hortagay diyaaradaha dagaalka Israa'iil iyagoo ku sii jeeday Iran. waxayna ku qasbeen inay bedelaan qorshahoodii oo dib ay u laabtaan. marka Trump arrinka ka xumaaday ciidan degdeg ah loo soo diray hawada lagu celiyaa. haddaba qaybtan waxaan ku soo qaadanaynaa koonfurta Lubnaan. Israa'iil waxay leedahay dagaalka ma joojinayn halkaas. Iranna waxay leedahay heshiiska uu Trump sheegayo qodob kamid ah wuxuu yahay in xabad joojinta laga joojiyo Lubnaan oo Israa'iil ay ka baxdo halkaas. ninkii wasiirka gaashaandhigga marka hadlay Israa'iil goor dhaweyd wuxuu leeyahay wax aan ka baxayno Lubnaan male. dagaalkana waa sii wadeynaa. dhanka kale Israa'iil waxay leedahay saacadihii la soo dhaafay ilaa 10 hogaamiyayaal oo Xisbullah ayaa beddelnay. hawshu waa wadaa. Xisbullah waxay leedahay annaguna waxaanu weerar ku qaadnay ilaa 14 weerar kala duwan saakay ilaa galabta goobaha ciidamada ay joogaan Israa'iil. marka halkaas ayaduna wareera ka taagan jugtaas la isku hayaa. haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkaygii caawa. waxaa soo kale aan idin barnaamijyadeedii koowaad iyo kii labaad oo iyaguna warar xiiso leh ay ku jiraan waad ka heli doontaan haddaadan daawan macluumaadka ku jira. like garay oo share garay inta aan mar kale kulmayno iyo barnaamijyo kale